haddii qola soo furanayo waxa way Cumar Maxamuud deegoon noo qaban maayo xamuud Salabaan goon noo qaban maayo ninka Cumar Maxamuud yaqaan waa yaqaanaa anagu hadeer afartan gabdhood iyo afartan wiil wallahi Maxamuud Salabaan ma jirta anagu ma caayo anagu Puntland waan falaqeeyaa saako u dambeysaan falaqeynay iskoolkii ay Puntland waxaas waan falaqeynay laakiin aniga naadir oo gacali oo aniga raggan waxa isku dhaanaa hadda wiilka qarankaano aad u garan maayo laakiin raggan anigu waxaan isku dhaanaa shakhsiyan markaan iska hadlayo aniga niyo naag dhulbaanta amar ma siin karto nin dhulbaantaana ma amri karo laakiin in adeerkay wuxuu dadka u caayayo shakhsiyan ibdaa binafsika wuxuu isagu leeyahay maahan waa gruubkaasi haddii maanta hadda ninkan waa boqolow haddii faa'iisa maanta tiraado dhulbaanta waa idin jecelahay la sacanaan ka digaya gruubkan waa dimaya laano meesha waxa ka cad gruub naag hogaaminayso ninka raggaana waxa fiican ama isku ilaalina hadalka soo koob ana ila hadashay hadalka soo koob waa qaybsanayna maayga ma joogtid hadda qolkaaga ma joogtid soo moodo qol dhexdhexaad islaan daan dhageysan islaan mudi islaamka hooyada waa saamus baastar iyo baastar ku dhalatay islaan ukadi islaan gabadha ruul oo qolka ma niman baa raba inay noogu durxulaan oo noogu maagaan qolkaaga qolka niman waxa midgaanka aamus iyo midgaanku dhalay oo Ismaaciil Xumud sheeganaya hadalka soo koob Jamaal ما يبليك هذه قولك يا اسكلا باتروني ورقولك ضد ما اسكلا معك رولي وكان ذيك رولي قد كان رولي رولي قولك ام جي ما يسكن قولك تيم كلي لبديني قولتي ما تشوفتان هدي كسر قولك waa dhexdhexaad haday ka soortana ام جي bas wiilkaas waa soo habar jecel ku qaba xamaro khaniiska la hadli ma yartay ruulo waxa ka rabaa inaad waxaan ka rabaa inaad qolku qol hartu baato khaniiska xamaro